Faragjar jabniin. Jabniinka waa laf jabtay oo burburtay waxaana loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah open fracture iyo closed fracture. Open fracture waxa waaye jabniinka furan. Closed fracture-na waxa waaye jabniinka xiran. Open fracture waa marka lafta jabtay ay haragga ka soo baxdo waxayna goysaa oogada ama maqaarka ama jirka sare ee maqaarka. Oogada sare ee maqaarka waxaana loo yaqaannaa compound fracture, macnaha jabniin isku jir ah. Waana kana compound fracture. Waxaa aragtaa lafta inay inta ka soo booday waxay meesha hadda boodo waaye. Kan waxaa waaye afka jilibka meeshaan waxaa ku jiro isha jilibka. Marka boodada jabtay laftan way soo booda marka intay soo aado. Macnaha lugta marka jidhka xoog leh uu ku dhaco inuu xamili karin oo hilibka iyo waxa inta ka soo gudbo jabkaas uu si toos u gaaro lafta waaye macnaha compound. Marka saan camal uu dhacbaa marka lafta si toos u dhacbaa harka malan jabniinka ugu xanuunka badan. Okay, marka waxaan galaynaa closed fracture. Closed fracture waa marka lafta jabtay aysan haragga ka soo bixin waxaana loo yaqaannaa simple fracture. Jabniinka fudud waxaana wanaagsan in qofkaas loo sameeyo shakaal inta laga geynayo goob caafimaad. Macnaha si ku meel gaar ah meesha lagu sii duubaa maadaama lafta aan banaanka ku soo baxsanayn. Meesha jabsan waa la duubaa macnaha mara iyo waxa la yeeli karaa lagu duubaa. Marka cashirka saas la socdo.